kulanto waxaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada maanta ugu dooroon ood ku daawan doontaan dalka miidiya waxaa ka mid ah xiisad cusub oo u dhexeysa Somaliland iyo Puntland oo ka taagan gobolka Daabid Cabdi Maxamed oo war xasaasi ah dagaalkii shalay ka dhacay xaafadaha jaamacadaha ee magaalada Muqdisho iska horimaad ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya koox hubeysan ku dhaxmaray degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo booliiska oo war ka soo saaray arrintaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo gobolka Sanaag iyadoo maanta la filayay in maamulada Somaliland iyo Puntland ay isdhaafsadaan maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaaladii ka dhacay Tukarraq ayaa waxay xiisad saaka laga dareemayaa deegaano ka tirsan xiisada ayaa lagu waramayaa inay u dhaxeyso ciidamada kala taabacsan Somaliland iyo Puntland iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in ay ka baqayaan in mar kale uu halkaasi dagaal xoogan ku dhaxmara xiisada ayaa saaka si gaar ah kaga taagan deegaanada Badhan Damalle Xagare iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaanadaasi oo ay wadaan maamulada Puntland iyo Somaliland magaalada Badhan waxaa ku sugan wafdi uu horkacayo wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan isagoo halkaasi shirar kula leh waxgaradka magaalada Badhan iyo saraakiisha ciidamada maamulkaasi wararkan helina ayaa sheegaya in xiisada ay ka dhalatay markii labada maamul ay isku qabteen doonista ku aadan in ay iyaga maamulaan deegaanada maanta xiisada ay ka taagan tahay sida Badhan iyo deegaano hoostaga dhowaan waxaa ciidamada maamulka Somaliland ka soo goostay saraakiil iyo ciidamo la socday kuwaas oo u wareegay dhinaca Puntland waxaana Somaliland dhinaceeda ay wadaan abaabul dagaal oo ay ku dooneyso inay la wareegaan deegaanada gobolka Sanaag ka tirsan xiisadan ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto iyadoo ay saameyn doonto maxaabiis isdhaafsigii labada dhinac u dhaxeysay gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Daabid Cabdi Maxamed ayaa qoraal ka soo saaray dagaal ku saabsan dhulka danta guud ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan midkii shalay galab ka dhacay xaafadda jaamacadaha ee magaalada Muqdisho Daabid ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay si nabadgelyo ah ku wajahdo marka la doonayo in dadka laga kiciyo guryaha danta guud ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho halkii laga shaqeyn lahaa inuu dhiig ku daato waliba iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan arrimaha dhulka danta guud oo ay dowladdu leedahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan ku baaqayaa marka dowladdu u soo baahato in guryaha laga saaro dadka si nabadgelyo isla markaana loo wajaho oo mar walba wadada nabadda loo maro si uusan dhiig ugu daadan ayuu yiri Daabid Cabdi Maxamed gaar ahaan xaafadaha hadda ay ka taagan tahay xiisada oo lagu magacaabo jaamacadaha ilaa iyo ex-control afgooye oo waxaa lagu guda jiraa dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan waana laga fiican yahay in dadka shacabka ay ku barakacaan dagaal dhiig ku anigoo hubo in arrintaasi wada hadal lagu dhameyn doono waxaan ku baaqiyaa in waan lagu xalayo la iskuna turo maadaama aan la kala maarmin ayuu yiri gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Daabid Cabdi Maxamed dhulka danta guud ee dowladdu u baahato inay ugu adeegto shacabka Soomaaliyeed waxaa habboon in loo maro waddo nabadoon oo aan abuuri karin rabshado iyo xasilooni darro maadaama qofka deganba uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo la doonayo in loo adeego ayuu yiri gudoomiye hore gobolka Banaadir Daabid Cabdi Maxamed ciidamada booliiska degmada Xamarweyne ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 3 burcad oo weysan oo dhacayay shacabka suuqa ka soo adeeg doontay kooxaha burcadka ciidamada booliiska ayaa israsaaseyn ku dhaxmartay degmada Xamarweyne iyadoona khasaare kala duwan uu ka dhashay israsaaseyntaasi inta la ogyahay hal qof ayaa ku dhintay oo shacab halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid ah uu yahay kooxihii burcadda ahaa iyadoona ciidamada ay gacanta ku dhigeen kooxda burcadka ah ciidamada booliiska degmada Xamarweyne ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 3 burcad oo hubeysan oo dhacayay shacabka suuqa ka soo doontay adeega ciida burcadka ayaa dagaalamay israsaaseyn kadib 3 burcad oo mid dhaawac u yahay ayaa gacanta lagu dhigay 3 qof oo shacab ayaa dhaawac fudud uu soo gaaray halka mid kalena uu ku dhintay israsaaseynta burcadka oo galay goob dukaan ah sidaasi waxaa sheegay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya General Zakiye magaalada Muqdisho ayaa mararka qaar waxaa ku dagaalama kooxo burcad ah iyo ciidamada booliiska Soomaaliya xiisad dagaal ayaa laga dareemayaa xaafadaha jaamacadaha kuwaasi oo la sheegay inay u dhaxeyso ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka
xiisadan ayaa salka ku haysa kadib markii dadka deegaanka la amray inay ka baxaan xaafadaha jaamacadaha islamarkaana arrintaasi ay si weyn uga hor yimaadeen maalmihii ugu dambeeyey waxaa halkaasi ku qulqulayay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya si ay meesha ugu saaraan goobaha danta guud ee la amray inay ka guuraan. shalay ugu dambeysay waxaa halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay dadka deegaanka inay ka guuraan xaafadaha jaamacadaha maadaama ay yihiin halkaasi danta guud iyadoona arrintaasi ay si weyn uga hor yimaadeen dadka deegaanka. maanta waxaa laga dareemayaa xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka. ilaa iyo hadda waxaa la soo sheegayaa in halkaasi ay isku hor fadhiyaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka inkastoo halkaasi laga dareemaya xiisad dagaal. shacabka degan xaafadaha jaamacadaha ayaa inta badan ka guuray maadaama halkaasi ay noqotay goobo dagaal oo la isku hor fadhiyo. xaaladda xaafadaha jaamacadaha ayaa ah mid aad u kacsan maadaama halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoona suuqyada halkaasi ku yaalay ay noqdeen kuwo xiran. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalka Media. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.